munaasibadan ballaaran oo ay ku qalinjabinayaan ardayda dhamaysatay fasalada dugsiga dhexe ee iskuulka agoomaha ee tabantaabo ayaa ka qabsoontay hoolka jaamacadda golis ee magaalada Burco waxaana munaasibadan qalinjabinta soo buuxdhaafiyay qaybaha kala duwan ee ardayda wax ka barata dugsiga agoomaha ee tabantaabo macallimiinta waalidiinta ardayda iyo mas'uuliyiin ka socota guddoonka waxbarashada gobolka Togdheer ugu horeynba waxa halkaasi ka hadashay maamulaha dugsiga tabantaabo Faadumo Muuse Cumar waxaanay ammaan bogaadin iyo hambaliyo ku sogotiyey ardayda sanadkan ka qalinjabisay fasalada dhexe ee dugsiga iskuulkan runtii waxa weeyaan sida magaciisa ka arkaysaan waa iskuul u khaas ah hablo kaliya isla markaana ay yihiin hablahaasi iskuulka dhigta hablo agooma oo markaas kulli qaarkood xataa abi hooyo toona aanay lahayn oo maartay rajadii agoontii labadaba daayihiin iskuulkani waxaanu bilownay xilligii aanu qabanay waxay ahayd markii maxaan ku dhahdaa 2007kii halay tankii bishii 7 baanu qabanay 2010kii bishii 7 ayaanu bilownay ilaa iyakii joogoodii markaas ardayda maanta eedka ka baxday oo ah dafcadii ugu horeysay ee ka baxday iskuulka maxaan ku dhahdaa ayaa maanta arkaysaan inay tahay maanta qoladii ugu horeysay oo tiradu ay tahay maxaan ku dhahdaa 16 hablood hablahaasi runtii waxa weeye iskuulku wuxuu ku ka oo kaliya waxay hoose dhexe secondary oo u dhisan maanta markaasi ma jirto waxaan runtii jecelnahay insha Allah taala sidii maanta uu inoogu sheegayo maxaadeen gudoomiyaha in cidii ay qaataan mooye cidda kalena aanu la maartay rajaynayno cidii kasta ee jecel in ay wax ka qabato ama wax nagala qabto hablaha iskuulada ama iskuulada kale runtii ay maxaan ku dhahay secondary ay gelayaan geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin macallimiin iyo marti sharaf kale oo ka soo qayb galay munaasibada waxaanay ku dhiirigeliyeen barbaarta ka baxaysa dugsiga agoomaha ee tabantaabo inay dadaalkooda halkaasi ka sii wataan maanta ayaan aragno ubadkii agoonta ahaa ee waliba gabdhaha ahaa ilaahay sidoo inoogu fududeeyay ama dumarka ka shaqeeyay ugu fududeeyay in halkaas soo gaarsiiyaan runtii waa nimco aad iyo aad u wanaagsan shaqadan ay qabteen waa shaqo qof mu'min uu qabto ta ugu wanaagsan weeyii oo waxyaabaha amalka qofka mu'minka uu qabto waxa ugu muhiimsan baa la yiri idkhaalul sururi fi qulubil mu'miniin isagoo farxad galiya qalbiga qofka mu'minka ama dadka mu'miniinta qalbigooda oo wax ay ku farxaan badka keema ama madasha keena qofka ayna tilmaamay gabdhaha inta cab soo galay waanaynu aragnaa tacabkii soo galay oo uu inoo muuqda markay sidaa tahay waxa ila tahay reer Burco dugsiyo badan oo agoomeed baa furan dhamaana wiilal weeye waa dugsiga koobaad ee gabdha khaas ee agoona ee aynu hayno hadaynu burcanahay markaan ka hadlo ardaydan aynu xafladiisa u nimi waxaan ka mid ahay waalidka ardaydu wuxuu dhigato uga dhigato tabantaabo iminkana uga soo gudubtay dugsi hoose dhexe siday u galeen iskuulka ee dugsi hoose uga soo bilaabeen wax lacaga oo wali mushaharana la kama qaadin wax diraysoona la yiri keenana ma aanan arag dharkay xidhaan iyo kabahay xidhaan baa yaa xataa loo keenaa ilaahay waxaan uga rajaynaynaa dadka naga tabantaabiyay ee halkii kaalintii aabaha uu ugu jiray u galay ilaahay subxaanahu wa ta'ala jisaayigooda inuu ka abaalmariyo عميد وزارة التعليم لجمهورية الصوماليلاند لإقليم تogdheer وسائر من ملء الحضور من الأشراف والأخيار dhalaar boorbay sidaa dhambaal weeyaan waqtigu rajadu guushay dhashaa aqligu waa dhaamiyaa dhaqaaluhu waa cilmiga markaan dhankan wacan ka dayo dhaliishu waxbay saxdaa gabagabadii waxaa hadalka soo afmeeray gudoomiyaha waxbarashada gobolka Togdheer Xasan Jaamac Oday iyo gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga muxaafidka ee kulmiye Abokor Arab Ileeye waxaanay bogaadiyeen ardayda sanadkan ka qalinjabinaysa dugsiga agoomaha ee tabantaabo wasaaradda waxbarashadu waxay u ballan qaadaysaa hablahan deeq waxbarasho bilaash ah oo ay dugsiyada sare ku dhiganayaan wixii kale ee tanaasulaada ama tabantaaba ahna hadba xaaladdu siday noogu saamaxdo ayaanu iyadana diyaar u lanahay ardayda qalinjabinaysa ee maanta baxaysa ee marxaladii asaasiga ahayd ama dugsiga hoose dhexe dhamaysay waxaan leeyahay alf mabruuk ilaahay subxaanahu wa ta'ala aqoonta barateen ha idin barakeeyo aqoontiina maydaan dhameynay imikaad salaankii fuusheen inta kale idin hadhayna inaad sii wadaan oo sidaas sharafta iyo karaamada iyo qiimuhu ka muuqato markii imika khudbadihiinaas
dadka meesha jooga idinma yaqaano galaaskiina idinma yaqaanaan laakiin hadalkiinaasay dhegaysanay gabayadiinii khudbadihii carabiga kuwii soomaaliga hadalladii aad noo jeedinayseen dufcadan ka qalin jabinaysa dugsiga agoomaha ee tabantaabo ayaa noqonaysa dufcadii koobaad ee ka qalin jabisa dugsiga maxamed xasan diiriye maxamed jookar telefishinka caalamiga Ariel TV magaalada Burco.